gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir gudoomiyaasha degmooyinka kusimaha taliyaha qaybta dhammaan taliyayaasha saldhigyada booliiska degmooyinka gobolka banaadir dhammaan kasoo qaybgalayaasha saraakiil xigeenada ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo kooxda fanka iyo suugaanta booliiska Soomaaliyeed ee heegan baahda saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ugu horreyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo taliyaha booliiska Soomaaliyeed oo runtii caawa halkan nagu sharfay nagu casuumay ujeedaduna ahayd bal in la dardar geliyo sugidda amniga caasimadda isla markaana loo arkay inay muhiim tahay gudoomiyaasha degmooyinka iyo taliyayaasha saldhigyadaba in caawa halkan la isugu yimaado isla markaana bulshada Soomaaliyeed loo gudbiyo sida loogu diyaar garoobay qorshihii sugidda amniga caasimadda oo runtii meel fiican maraya magaaladan Muqdisho iyo waqtiyada soo martayna waa la soconaa 2018 iyo sidii runtii qorshihii xasilinta loo hirgeliyay hadda 2019kana booliiska aan rabnay inaan uga mahadcelino ballanqaadkoodii inay soo dhammaystireen 3,000 oo profession ciidan dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo runtii u istaagi doona sugidda amniga caasimadda iyo badbaadada shacabkaba runtii intaas runtii caawa iyo kulankan waxaan oran karaa ahmiyad gaar ah ayuu noo wada leeyahay bulshadan magaalada Muqdisho oo runtii ku jiifta badbaadada mas'uuliyiintan halkan joogta in ayagana aan la wadaagno u sheegno iyo wacyigelinta la rabo in bulshada la gaarsiiyo oo runtii aad ugu faraxsanahay guddiga wacyigelinta heer qaran oo runtii ayagana kaalin mugle ka qaata arrimaha caasimadda ha noqoto xoogga wadaniyiinta ha noqoto dhaqangelinta darisaynta ha noqoto sidii bulshada runtii loo kasban lahaa aan rabayna halkan Yuusuf Diiriye iyo Cabdiqaadir Shire nala jooga aan aad uga mahadceliyo sida hagar la'aanta ah oo ay mar walba maamulka gobolkan ula shaqeeyaan anoo og hawshoodii howl qaran oo waddanka oo dhan sugaysa haddana sida aan u daadajinay oo degmo walba loo geeyo wakiil isla markaana ay darisayntii xoogga wadaniyiinta iyo maamulada degmooyinkana ay u joogaan in bulshada loo ballan qaado in amnigoodii la sugo marka runtii howl culus baa na hortaalla hawshaasna waa howl bulshada naga sugayso waxaa moodaa markii qarax dhaco markii fal dhaco in bulshada iyo social media iyo magaalada dhan wada kacdo laakiin inta habeen walba ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo maamulada degmooyinka iyo xoogga wadaniyiinta ay taagan yihiin badbaadada shacabka runtii taas ayay tahay tan la rabo bulshada inaan u bandhigno tusno una cadeyno inaan u taagannahay har iyo habeen inaan sugno amnigooda taasna waa tan keenaysa in habeenada caawa kala oo wacyigelintan iyo dardargelintaba aan rabno inaan uga faa'iideysano isla markaana bulshada la geliyo kalsoonidii ay u baahnaayeen waa dareemi karnaa Muqdisho hadda in muddo wax oo dhib oo amni weyn kama dhicin haddana qof intaas ammaanayso maalin walba social media taagano amniga haysanaa oo fiicannahay ma jirto marka waxaan rabnaa bulshada in lagu baraarujiyo wax ayaga leeyihiin amnigooda ay sugteen in ay ku faanaan bulshadan u soo bandhigaan waa dhab heybad waxaa ku leedahay dalkaaga hooyo
dhammaan taliyaha booliiska Soomaaliyeed iyo annagaba mas'uuliyiinta nabada aan maaragtay naloo dhiibay xilkan culus runtii waa midaan bulshada u hayno heybadna waxaan ku yeelanaynaa annagoo u adeegna bulshadeenna si daacada si wadannimo ku jirto si lilaahi ah isla markaana ay dareemaan in ay haystaan mas'uuliyiin iyo muxuu ahaa ciidan mar walba u taagan runtii ciidanka booliiska Soomaaliyeed habeen walba saacadaar soco isgoys walba tag waxa taagan waa wiil dhalinyaro Soomaaliyeed waa ciidan booliis ah oo qaba dharkii ama gabar ah runtii dadkaas oo dhaxanta u taagan qorraxda u taagan har iyo habeenna taagan runtii waxay nooga baahan yihiin annaga bulshada Soomaaliyeed haddaan nahay mas'uuliyiintaba inaan dhahno waa mahadsantihiin markaan ag marayno si sharaf ah aan maaragtay u xusno isla markaana aan dareensiino waxay u taagan yihiin inay annaga tahay marka waxaan rabnaa bulshadii iyo booliiska oo wada shaqeeyana bulshada la shaqeey booliiskana waa heystii hadda qiimaha ay qaayaha lahayd oo nuxurkaas haddii bulshada loogu celceliyo ayaaba runtii keenaysa in bulshadana ay dareemaan qiiradii annagana keenta dhammaanteedna soo wada istaajisay heestaasna waa dareemi karnaa marka waxaan rabnaa guddoomiyaasha degmooyinka taliyaasha booliiska ee degmooyinka iyo qaybta guudba in aad ogaataan magaaladan Muqdisho shacabkeeda cidday wax ka sugayso waa annagii haddaana u soo istaagin u jeesaninna wax noo hagaagaya male waxaan ku faraxsanahay muddadii 12 bilooda runtii oo taliyaha booliiska iyo dhammaan ciidanka booliiskaba sida hagar la'aanta oo si istiraatiijiga uga wada shaqeynay arrimaha amniga isla markaana lagu diirsay daymadaada badi waa eray macno weyn sameynaa marka gudoomiye degmo iyo taliye booliiso waxaa laydinka rabaa inaad daymadiina badisaan si bulshadeedu ku diirsato marka waxaan jeclaan lahaa caawa mar kale inaan u mahadceliyo taliyaha booliiska iyo dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan idin ballan qaadaynaa annagana inaan si hagarlaana oo dhow oo saaxiibtinimo leh walaaltinimo ku jirto idinla shaqayn doono waxaan ballan qaadaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo barnaamijka darisaynta xoogga wadaniyiinta gudoomiye waaxeed laameed ilaa iyo gudoomiye degmo iyo councilka degmadaba inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska isla markaana waliba dhalinyarada iyo haweenka oo door muhiima ku leh dhan walbana nagala qayb qaata ama ha noqoto ololayaasha oo muxuu ahaa isxilqaan ee nadaafadda sugidda amniga waxaan qabaa in barnaamijka isxilqaan ee amniga inaan bilaabno la dardargeliyo sida uu Yuusuf Diiri u sheegayna waxaan rabnaa gudoomiyaha iyo taliyaha degmadu bal horta inta fariistaan qol isku soo xiraan buugna qaataan war amnigan maxaa xaguu ka halaysan degmadii ciladu maxay tahay isbuuc walba analysis keena dhaho annaga degmadeeni waa hebel laan hebel ayay ciladu ka jirtaa ciladana waxay tahay hebel iyo hebel oo la og yahay ayaa magaaladan dhib ku haya waqtigii la qarsanayay waa dhamaatay waxaa la joogaa waqtigii cid kastoo dhib ku haya bulshada la soo bandhigi lahaa haddaa idinka xishoonaysaan magaca annaga noo soo gudbiya annagaa bannaanka la soo istaagayno isla markaan u gudbinayno hay-adihii amniga si tallaabo sharci ah looga qaado runtii bulshada cidda u maqan waa inteenaan inta joogta waxaan rajaynaa caawa wacyigelintii iyo talooyinkii iyo tusaalihii aan bulshada u gudbin laheenna inaan u gudbinnay wixii laga bilaabo berina aan u gudbi doonno qorshe howleed iyo dardargelin sugidda amniga caasimadda Muqdisho degmo walbana ha ogaato in lagula xisaabtami doono anoo hubo taliyahana sidoo kale taliyaasha saldhigyada ayagana in lala xisaabtami doono isla xisaabtankaas oo ujeedadiisu yahay sideen u sii badbaadinaa shacabkeena sideen amniga u sii sugnaa sideen ku gaarnaa caasimadda inay la tartanto caasimadaha adduunka sida London iyo caasimadaha kale adduunka
taasna waxay keliya ku imaan kartaa bulshadeeda oo u istaagta bulshadana waa hay'adihii amniga iyo maamuladii u jiray aad iyo aad u mahadsantihiin taliya mar kale aad iyo aad kaga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay howlihii aan ballan qaadnayna inaan ka dhameyn doono waa mahadsantihiin